subaxdii Oktoobar ay ahayd 1977 waxaa lagu waabariistay farax iyo ididiila cusub sanad guuradii 8aad ee ka soo wareegtay kacaankii Oktoobar 22 Oktoobar 1969 xogayaha guud ee xisbiga hantiwadaaga kacaanka Soomaalidu Jaalle Maxamed Siyaad Barre wuxuu kala qayb galay dadweynihii Soomaaliyeed fantasiyaha maalintaasi u dhacayay waxa halkaasi madaxweynaha ku yaacay oo ku soo dhaweeyay habla kamida ubaxa kacaanka Soomaalida waxaana fantasiyaha lagu bilaabay subaxdaasi ciyaar la yaab leh oo ubaxa kacaanka ay dadweynaha ku soo dhaweeyeen oo ay ku madadaaliyeen lama kala garto ilmaha iyo ubaxa ay kolba kor u qaadayaan oo geesta ay u qaadaanba ay leedahay macno gooni ah qayb kale oo ka tirsan ubaxa ayaa iyaguna fagaarahaasi subaxda wacdara ka dhigay waxaana ay masilayeen geesiyada ka tirsan jabhadda xoreynta galbeedka Soomaalida ee gumaysiga amxaaradu uu cagta hoos galiyay siniin iyo siniin iyaga oo muujinaya dhirbaaxooyinka geesiyada jabhaddu ay u geysteen ciidamo ku sheega xukuumadda dadqalka Mingistu ayaa halkaasi waxa ay kor u qaadeen calanka jabhadda xogayaha guud ee xisbiga hantiwadaaga kacaanka Soomaalida Jaalle Maxamed Siyaad Barre waxa uu salaan ka gudoomay boqolaal masilaya oo ka tirsan bulshada Soomaaliyeed waxaana horseed u ahaa xisbiga hantiwadaaga kacaanka Soomaalida haweenka Soomaaliyeed qayb libaax ayay ka qaateen dhismaha iyo daryeelka midnimada kacaanka haweenku weligoodba waa kuwii naftooda u huri jiray gobonnimo doonka waa kuwii muriyadahooda iyo dahabkooda u soo gaday xorriyaddii halgankii loo galay iminkana haweenka Soomaaliyeed taageero xoog leh iyo gacan weyn ayay siiyaan jabhadda u horseeda gobonnimada xoreynta galbeedka Soomaalida afar iyo tobanka degmo ee ka tirsan magaalada Muqdisho xaafadahooga ayaa iyaguna subaxdaasi ka soo qayb galay bandhigaasi la yaab kale ee lagu xusayay sanad guuradii 8aad ee ka soo wareegtay Oktoobar 22 1969 iyaga oo warmasita iyo dharkii Soomaalidu ay hidaha iyo dhaqanka u lahayd haween iyo ragna isugu jira ayaa halkaasi waxa ay ku mareen shirib la yaab leh iyaga oo xaafad waliba ay muujinayso sida ay ugu dadaasho horumarinta magaalada damaashaadkaasi weyn ee lagu xusayay sanad guurada 8aad ee kacaanka Oktoobar waxa iyaguna qaybtooda ka qaatay heer guuraaga Soomaaliyeed iyagoo sita dharkii hidaha iyo dhaqanka Soomaalida u lahayd warmahoodii gaashaamadoodii ileen ciyaar lagu ma haystee ayaa halkaas iyaguna shirib ku soo mareen
caqliga wanaagsani waxa uu la socdaa jidhka caafimaadka qaba ciyaaruhuna waxa jidhka ay u kobciyaan sida dhirtuba ugu baxdo biyaha dhalinyarada Soomaalidu waxay aad ugu wanaagsan yihiin ciyaaraha jaad kasta ha noqdo haween gabdho iyo wiilalba looma kala haro ciyaarahaasi maantana dhalinyarada Soomaalidu waxa ay ka qayb galaan tartanada caalamiga ha noqoto kubadda cagta ta kolayga ama kuwa kale ee orodka iyo boodadaba halkaasi waxa socod ku soo maray tiimamka kala jaadka ah ee magaalada Muqdisho iyaga oo muujinaya sida ay diyaar ugu yihiin xagga ciyaaraha ee mar walba ay lugta ugu taagan yihiin ciidankaasi waxa uu ka tirsan yahay dhalinyarada bisha cas ee gargaarka degdega ah oo fidisa dadweynaha marka dhibaato ay soo fool yeelato degdeg dhalinyarada Soomaaliyeed ee kacaanka waxa ay iftiinka iyo siraadkaba u sidaan xoogagga bulshada oo dhan abaabulka dadweynahana qayb weyn oo la yaab leh ayaa ay dhalinyaradu ka qaataan dhalinyarada Soomaalidu waa kuwii miyi iyo magaalaba u baxay si iftiinka aqoonta ay u gaarsiiyaan dadweynaha Soomaaliyeed iyaga oo baaqi jaalasiyaad xusaya ayaa waxa ay olole ku qaadeen sida loo tirayo aqoon darrada ololihii reer miyiguna waxa uu ahaa waxyaabihii ugu waaweynaa ee dunidan ka hirgalay xagga tacliinta iyo waxbarashada taariikhda bulshadu waxa ay maraka tahay in goob kasta oo ay isku hirdiyaan xoogagga gobonnimodoonka iyo gumaysatadu in libintu weligeedba ay la hoydaan dadka la cadaadiyo ee xuquuqdooda iyo qarannimadooda u halgamaya inkasta oo xoogga gumaysigu uu laxaad weyn yahay geesiyada jabhaduna waxa ay imika xoreeyeen inta badan dhulkii gumaysigu uu muddada badan haystay dhulkii amxaaradu ay dadka Soomaaliyeed ku cadaadin jirtay waxa ay dhabarka ka jabiyeen ciidamada huwanta ah ee calanka ay u sidaan ciidamada Ruushka Kuubaanka iyo kuwa kale ee ay cagaha ku xaadaan waxa hubaala guushu mar walba inay raacayso geesiyadaas ummadda Soomaalidu yar iyo weyn caruur iyo ciroole calanka ayay kor u qaadeen walaalahooda u dagaalamaya xornimada ee doonaya inay xoreeyaan galbeedka Soomaalidana garab hiil iyo hoo iyo taageero jaadulba way siiyaan dhalinyaradaasi waxa ay muujinayaan in marka loo baahdo goobta laga doonayo ay diyaar u yihiin degdeg inay u tagaan oo gumaysiga ay baabi'iyaan shaqaalaha Soomaaliyeed waa lafdhabarta dalku ku dhisan yahay waa muruqa soo saara waxa bulshada Soomaalidu ay munaafacaadsato ee ay ku nooshahay waa dalka feejigan ee sutida u haya cadowga doonaya inuu mashxaabiyo dadaalka iyo midhaha kacaanka Soomaaliyeed kacaankuna waxa uu ku ballan qaaday in shaqaalaha Soomaalidu aanu ka hooseyn shaqaalaha dunida in shaqaalaha Soomaalida siyaasaddiisa garaadkiisa iyo dhaqaalihiisaba kor loo qaado shaqaalaha Soomaaliyeed maanta wuxuu marayaa heer lagu faani karo heer uu og yahay dalkiisu waxa uu ku sugan yahay iyo waxa uu ka doonayo ahamiyad gaar ah ayaa xukuumadda kacaanku waxa ay saartay mashaariicda degdegsiyada ah iyada oo beeraleyda saboolka ah la taageerayo si dalka Soomaalidu uu isaga filaado xagga cunnada ciidamada guuloodayaashu waa xoogagga ilaaliya midhaha kacaanka ee isha ku haya cadowga una adeega danta dadweynaha Soomaaliyeed waa xoogagga iyagu naftooda u horay inay ugu horeeyaan oo ay isku beegaan kaalinta ugu adag ee ugu daran waxa weeye ciidamada mar walba soo jeeda ee ummadda Soomaaliyeed ay ku hurdo cadowga dibadda iyo ka gudahaba waa nimanka had iyo gooraale u feejigan ee qalabka u sida waa niman la tababaray oo marka loo baahdo meesha la doono la geyn karo
ciidamada bileysku waxa ay ka mid yihiin waxyaabaha xasiloonaanta dalku ay ku dhisan tahay qaybaha ay ka mid yihiin daraawiishtuna waxa weeye nimanka iyagu soodimaha ilaaliya dalka Soomaaliyeed uu leeyahay ciidamada birmadka bilayska oo sitaa dareyskii iyaguna ay lagu garan jiray ee ay diyaarka ugu ahaayeen mar walba hawsha iyo xilka soo food saaran Soomaaliyeed waxa uu daryeelay maatadii iyo carruurtii suuqyada daadsaneed ee dacdarrada iyo darxumadu suuqyada ay ugu diri jirtay xarunta dhalinyarada kacaanka ee la foole waxa maanta lagu carbiyaa ubaxa dalka u kacaya oo qaybtooda berrito ka qaadanaya xilka dhismaha bulshada iyo dalka Soomaaliyeed dhalinyarada macadka tababarka ee xalane ee iyagu u darban difaaca dalka dhalinyarada xalane waxa weeye qaar loogu talagalay in ay difaaca dalka marka loo baahdo iyo meesha laga doono markaaba isku qaadaan waa dhalinyaro u jajabsan tababarka militariga waa niman meesha lagu aadiyo si geesinimo ah uga soo baxaya dhalinyarada Soomaalidu waxa ay naftooda dhammaantoodba u hureen difaaca dalkooda iyo horumarka danaha Soomaaliyeed xalane maaha meel hablaha lagu liido hablaha iyo wiilashuba way siman yihiin oo orod haddii ay noqoto liishaan haddii ay noqoto wax walba way ka siman yihiin ciidamada badda ee ilaaliya xeebaha dhaadheer ee quruxda badan leh ee dalka Soomaaliyeed ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed waxa weeye xoogga ilaaliya qarannimada dalka waa rag la miiray oo habeen iyo dharaar u heegana difaaca dalka Soomaalida waa birfinin ka hadlay oo aanay waxba mari karin haraad iyo gaajo ma yaqaanaan daal iyo jiljileecna ka fogeen ciidamada soo majeystayaasha xoogga dalka Soomaaliyeed haddaba hoog waxa leh cadowgu haddii uu isku dayo inuu ku soo gardaroodo dalka Soomaaliyeed waxa hubaal ah in ay ciidamadaasi cagta marinayaan marka uu cadowgu damco inuu far soo saaro qarannimada Soomaaliyeed ciidamadaasi waxa weeye niman iyagu loogu tababaray inay cadowga dhirbaaxa ku dhigtaan oo dhabarka ay ka jabiyaan marka cadowgu caqli xumadiisu ay siiso inuu ka soo daafureego dhulka Soomaalida ayaantaasi Oktoobar ay ahayd 22 sanadkuna uu ahaa 1977 looma kala hadhin dabaaldegga weyn ee lagu xusayay sanad guuradii 8 ka soo wareegtay kacaankii Oktoobar ciidamada qalabka sidaana waxa halkaasi ay ku soo bandhigeen hubka casriga ah ee la yaab kale hubkaasi casriga ah ee subaxdaasi la soo bandhigay waa mid cabsi gelinaya cadowga ididiilo iyo geesinimona gelinaya dadweynaha Soomaaliyeed oo ku seexanaya niyadda u fadhida libaxyada xoogga dalkuna waxa ay goortaasi iyagu u jajabsan yihiin sida ay u isticmaalayaan hubkaasi oo uu ka mid yahay madaafiicda culculus ee meesha fog wax ka toogata oo meesha ay ku dhacaan holoc iyo dab mooye aan naf la ku haray
baabuur caadiya oo meesha maraysa hamoodine waxa ay sidaan sawaariikh la yaab leh oo boqol u dhaca oo barta roobka kaga dhigaya cadowga meesha uu ku dhuumanayo marka lagu rido gurguuratooyinka dulmara dhufays kasta oo cadowgu uu ku dhinto fagaarahaasi hubka lagu soo bandhigay waxa iyaguna dul marayay oo dabaaldegga dhinacooda ka qaadanayay ciidamada dayuuradaha ee dalka Soomaalida taariikhda haggashe maalintaasi Oktoobar ay ahayd 22 ee loo dabaaldegayay sanad guuradii 8aad ee ka soo wareegtay maalintii kacaanku u dhashay ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogtay waxay ku waabariisatay oo ay ku farxaysay riyaaq iyo rayn waxa la isugu tagay garoonka weyn ee la yiraahdo Banaadir ee ciyaaraha ee magaalada Muqdisho halkaasi oo dhalinyarada Soomaalidu ay ku tartamayeen nacas baa ka haray maalinta ninkii orod yaqaanay ninkii booti yaqaanay looma kala harin bootinta dheer oo dhalinyaradu ay ku tartamayeen habluhu waxa ay ka qayb galeen tartanka orodka xawda Jaalle Xuseen Kulmiye ayaa kamid ahaa madaxdii sharafta lahayd ee halkaasi daawanaysay dhalinyaradu ciyaaraha ay soo bandhigeen dabeeto waxa lagu nastay oo halkaasi lagu daawaday ciyaar kubadeed oo dhex martay laba kooxood oo ka tirsan kooxaha kala jaadka ah ee magaalada Muqdisho ciyaartaasi kubadda ah ee lagu tartamay magaalada Muqdisho labada kooxood ay isaga yimaadeen waxa weey mid uu muujinaysa sida dhalinyarada Soomaalida ee kubadda ciyaarta ay ugu horumareen xafada iyo xeeladaha iyo tabaha kubadda lugta taasi oo ay ku muujiyeen meelo fara badan oo dibadda ah oo ay isaga hor yimaadeen kooxo shisheeye ah oo ciyaarta kubadda ay isku hurdiyeen habeenkaasina waxa la isugu yimid guriga murtida iyo madadaalada halkaasi oo xogayaha guud ee xisbiga hantiwada kacaanka Soomaalidu Jaalle Siyaad uu ka soo qayb galay oo dadka Soomaaliyeed ee halka yimid uu la daawaday riwaayad iyo madadaalo la yaab leh oo ay soo bandhigeen hoobalada waabari kacaanka Soomaaliyeed wuxuu daryeelaa sidii hoobaladu ay ugu madax banaanaan lahaayeen dhaqanka iyo hidaha Soomaalida mar walba in la daryeelo kacaanka ummadda Soomaaliduna waxa weeye ka gacanta ugu horeysa siiya in ummadda Soomaalidu ay noqoto mid dhaqankeeda had iyo jeer ku faanta oo dhaqan shisheeye aan sidaasi u sii tiigaalin iyo riwaayadii iyo madadaaladii halkaasi lagu soo bandhigay markii la soo gabagabeeyay ee ay dhamaatay ayaa waxa halkaasi sacab iyo farxad ku bogaadiyay
jaalasiyaad iyo martidii sharafta lahayd ee halkaasi ku daawatay hooballadii riwaayadda ay soo bandhigeen. jaalasiyaad dabeeto wuxuu u jeediyey hooballadii khudbad gaaban oo mahadnaqa isaga oo ku dhiiri gelinaya oo ku tirtirsiinaya dhallinyarada hooballada Soomaalidu inay tallaabada halkaasi ka sii wadaan inay kor sii qaadaan hiddaha iyo dhaqanka Soomaalida. ha noolaato wiilii Soomaalidu ha noolaato midnimada Soomaalidu. hadda ugu yiri guulaysiga iyo kuwa iyaga